wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Maxamed Muuse Diriye oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa fariin u kala diray mas'uuliyiinta kala duwan ee wakaaladaha biyaha ee gobolada Somaliland isagoo ugu baaqay inay kor u qaadaan nadaafadda iyo ilaalinta biyaha ay gacanta ku hayaan si looga hortago cudurka dilaaga ee coronavirus. waxaan u dirayaa ama aan qoraal u sameeyay inuu kala diray dhammaanba wakaaladaha iyo maareeyayaasha isuduwayaasha gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda horumarinta biyaha inay ka qayb qaataan nadaafadda iyo fayadhowrka bulshada dhexdeeda ka wacyigeliyaan oo ay u sheegaan waxa looga baahan yahay qof kasta oo reer Somaliland ah inuu ilaaliyo muxuu ahaa nadaafadda gurigiisa nadaafadda muxuu ahaa farxalka guud ahaan bahda la isku yiraahdo golaha washka waxaan doonayaa inaan halkan u mariyo inay ka qayb qaataan wacyigelinta iyo sheegidda dadka dadweynaha reer Jamhuuriyadda Somaliland. dhanka kale wasiirku wuxuu shaaciyay in gabi ahaanba sanadka la joojiyay asaskii kala duwan ee loo qaban lahaa maalinta biyaha oo sanad kasta laga xuso caalamka isagoo tilmaamay inay ku bedeli doonaan wacyigelin la xiriirta dhanka cudurka coronavirus. waxay nagu soo dhow maalintii biyaha adduunka runtii waxaanu islahayn xaflad weyn qabta oo munaasabadan ku salaysan halkan aanu ballaysanay waxaanu doonaynaa in la isku yimaado halkan aanu fariin adduunweynaha ugu diro in muxuu ahaay biyaha iyo wax nolosha doorka ay ku leeyihiin hase yeeshee waxay naga soo dhaxgalay xafladda waanu hakinay qaabka ayaanu u dhignay inaanu gobolada oo dhan wacyigelin ka samayno maalintii farxalka iyo fayadhowrka aanu ka dhigno oonu u sheegno dadku xanuunka sida loo kala qaaday khatarta ay leedahay iyo doorka ay biyuhu ku leeyihiin in laga hortago xanuunkaas taasaanu doonaynaa inaanu maanta ku bedelo kulley wacyigelin ama bahdayada warbaahinta ha ahaato oo aan la kaashanayno ama guddida oo madaxweynuhu u magacaabay hawshaasi ha ahaatee guddida degdega muxuu ahaa arrimaha muxuu ahaa xanuunka fayraska ee loo magacaabay wasaaradda caafimaadka guddoomiyaha uu yahay marka waxaan doonayaa inaan fariinta gaarsiiyo dhammaanba intay khusayso ee wasaaraddeeda ku saabsan inay doorkooda ka qayb qaataan haddii la yiraahdo waxaanu samayn doonaa billboardadii aanu ugu talagalay maalinta biyaha oo sidoodii iska ahaanay hase yeeshee aanu ku gudbinayno fariimaha sida looga hortagay xanuunkan kale ee doorka nadaafaddu ay uga qayb qaadanayso iyo biyuhu uga qayb qaadanayaan haddii la yiraahdo intaasaan doonayay inaan u mariyo ummaddoonu sheego in la ilaaliyo nadaafadda in la ilaaliyo fayadhowrka in muxuu ahaa wacyigelinta guddida muxuu ahaa madaxweynuhu u magacaabay xaaladda arrinta fayraska ay doorkooda muxuu ahaa ay fariintooda qaataan oo halkaa kala socdaan taasaanu fulinaynaa haddii la yiraahdo. Ismaan Axmed Ismaan Sabtiif Hargeysa. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Sab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Sab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhnow.